الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ilaahay subxaana wa tacaala salaaddu waxa uu ka dhigay camalka ugu qiimaha badan ee markaa loogu dhowaado. salaadda waxa uu ka yeelay ama uu dhex yeelay qiimo aad iyo aad u sarreeya. miise gooni ah ayay ka leedahay cibaadaadka kale. salaaddu la mid ma aha cibaadooyinka kale. sababtu waxay tahay soonku mar allaala marka qofku uu soo gaaro uu xanuunsado ama safar uu yahay, wuu iska cunaa, dib dambowna ka soo qalleeyaa. islaanta xaamiladaa way cuntaa, gadaal dambay ka keentaa. odayga waayeelkaa wuu cunaa, gadaal dambuu ka keenaa, amase fidyaal laga bixiyaa. amaa salaaddu saa ma aha. salaadda haddaad jiran tahayna salaaddii mariidkaa tukanaysa. haddaad safar tahay salaadda musaafirkaa tukanaysa. haddaad uur leedahay fadhi baad ka tukanaysa oodan istaagi karin. daqiiqadna qofka lagama dhaafa salaadda, waayo waa xiriir adi iyo rabbi idinka dhexeeya. daqiiqad inuu go'o lama rabo, daqiiqad inuu istaagaa lama rabo. haddii hal daqiiqad ama laxdo uu kala go'o, xiriirka adi iyo rabbi idiin dhexeeya waad khasaaraysaa, waad hoogtay. dhibka iyo ba' waxaa nagu haaya xiriirkii allaanu goynay. rabbi xiriirkii nagala dhexeeyaan goynay. ilaahay ayaanan la xiriirin wax badan. taasaa keentay qofka maanta jooga ee salaadda ka tegey inuu rabbi naco subxaana wa tacaala. taariku salaadku waa malcuun. taariku salaadku waa qof ilaahay nacay. taariku salaadku waa qof ilaahay agtiisa qiimo aan ku lahayn subxaana wa tacaala. sidaa darteed baana la faray saa nafteenna iyo maalkeenna iyo awlaaddeenna iyo dahabkeenna iyo qabiilkeenna aan u ilaalinayno si ka daran inaan salaadda u ilaalino, si ka daran in salaadda loo xafido. ilaah wuxuu yidhi: xaafiduu cala asalawaat. salaadaha shantaa ilaaliya, salaadaha shanta ah xifdiya oo dhowra. xaafiduu cala asalawaat waa shanta salaadood. waasalaati alwustaa, salaadda lagu magacaabo salaad dhexadana ilaaliya. waxaa loo badan yahay inay salaadda casirkaa tahay. salaadda casirkaa qiimo gooniyay leedahay. salaadda casirkaa sharaf gooni ahay leedahay. salaadda casirkaa la mid ma aha salaadaha kale. saa darteed baa la yidhi qof kasta ay salaad casir ka tagto faqad xabita camaluhu, camalkiisa waa buri. ninkay salaad casir dhaafto, qofkii salaadda casir haleeli waayo, camalkiisii waa buray. xaafiduu cala asalawaat. war hoy salaadaha shantaa ilaaliya. salaadaha shantaynan idinku qalloobin. salaadaha shanta ha dayicina. salaadaha waajibaadkaa aad iyo aad u xafida. xaafiduu cala asalawaat waasalaati alwustaa, waa salaad dhexe, waa salaad casir. waquumuu lilaah, alla dartiina isu taaga markaad tukanaysaan idinkoo qaanitiin ah, macnaa idinkoo saakitiin oo aamusan. markii hore saxaabigu wuxuu yidhi salaadda waa lagu dhex hadli jiray intaysan aayaddan soo degin. qofka kale markuu soo galo su'aal buu weydiin jiray: warhoy iska waran, reeruhu ka waran, ciyaalku ma fiican yihiin? waa salaadda gudaheeda. meeqaa la tukaday? 3 xalaa dhiman. xaaladaasaa laisweydiin jiray. rasuulkuna ma uusan ka reebi jirin, waayo waxii laguma soo dejin ilaa ay soo degtay buu yidhi saxaabigii: waquumuu lilaah, alla dartii isu taaga qaanitiina, idinkoo qaanitiin ah. umirnaa biاsukuut wanuhiinaa can ilkalaam. hadal baa nala ka reebay, aamus baa nala faray. waquumuu lilaahi qaanitiin waxaa loola jeedaa idinkoon hadlaynin. waa ilaahay baad la koodaysaan subxaana wa tacaala. qofka salaada u taagan ilaahay buu hor taagan yahay.
qofku markuu salaad u tukanayo buu dhahay nebiga asi iyo rabbigii baynahu wa bayna alqiblow ahaaday. ilaahay asaga iyo qibladuu u dhaxeeya. yuusan candhuufta u tufin hortiisa, midigtana yuusan u tufin, laakiin bidixdiisa ha u tufo gummadda ama lugta hoosteeda ah. intaa kadib rasuulka cimaamadiisuu soo qaaday, waa uu ku tufay, waa isku rugrugoo wuu isku celceliyey. markaasuu dhahay aw yafcalu haakadaa, ama saa ha sameeyo, sidaa ha sameeyo. waquumuu lilaahi qaanitiin, idinkoo khaashiciin ahoo khushuucsan, idinkoo qaanitiin ahoo rabbi ateecsan, idinkoo qaanitiin ahoo aamusan, idinkoo qaanitiin ahoon hadlaynin tukada buu dhaha ilaah subxaana wa tacaala. salaadu la mid maaha saan soo tilmaanay cibaadooyinka kale. xukun kasta, amar walba oo la soo dejinayo, dadka la amrahayo, nebiga waxaa lagu soo dejin jiray asagoo dhulka jooga. amaa habeenkii salaada nebigu waa la rafacay, israa'i micraaj baa lagu sameeyey, toos baa loogu soo dhiibay. ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu ka dheelmiyey masjid alxaraam, wuxuu u dheemiyey ila almasjid alaqsa aladii baaraknaa xawlah linuriyahu min aayaatina inahu huwa asamiicu albasiir. subxaana aladii asraa bicabdihi laylan, habeenkaas salaad baa loo soo dhiibay, cirkaa loo furay, wuxuu la kulmay mulugtii sare, nebiyadii baa loo diyaariyey, cirkuu kula kulmay, ilaa ilaahi subxaana wa tacaala xaggiisa loo rafacay, ilaa jibriil uu ka haray uu socon waayey ee uu dhahay nebiga meeshaan miyaa laysaga tagaa, ee jibriil uu dhahay qof kasta maqaam uusan dhaafin buu leeyahay. wamaa minnaa ilaa lahu maqaamun macluum, axad annaga naga mid ahi ma jiro ilaa meel uusan dhaafi karin baa jira. soco adi rabbiga aad subxaana wa tacaala. rasuulku horuu u sii socday ilaa aqlaamtii qalimadii tasriifkoodii shanqartoodii uu maqlay. ilaahayaa wuxuu u soo dhiibay 50 salaadood subxaana wa tacaala. 50 salaadood buu soo qaatay nebiga, 50 salaadood asagoo watuu soo baxay, 50 salaadood asagoo soo wata ayuu la soo maray nebi muuse calayhi salaam. nebi muusaa dhahay maxaa rabbigaa ummaddaa ku farad yeelay? 50 salaadood baa laygu farad yeelay buu dhahay nebiga. nebi muuse wuxuu dhahay orod rabbigaa u noqo, ummaddaada way diitaan, way ka fudud yihiin, way ka khafiifsan yihiin. reer bani israa'iil baan la caalajoon la dhaqmay, way ka karti iyo xoog badnaayeen, haddana way awoodi waayeen. ummaddaada way ka tabardaran yihiin, ilaahay u taga iga khafiifi dheh. wuu baxay rasuulka oo ilaahay ayuu u laabtay. intaa wixii ka dambeeya waa laga soo dhimay, ma uusan ka zuulin inuu ku laalaabanayo ilaahay iyo nebi muuse inta u dhaxaysa, ilaa markii dambe 5 salaadood laga soo dhigay. nebigu muuse wuu soo qaatay nebiga salaadihii 5ta ahaa. nebi muuse uu la soo maray calayhi salaam. 5tii buu dhahay bax rabbigaa u noqo muuse. ilaahay ha u raxmada nebi muuse calayhi salaam, aad buu noogu dadaalay. 50 salaadood bay ahayd, 50tii salaadood ilaa 5 laga dhimay ayuu orod noqo dhahaayey. 5tii buu dhahay haddana orod noqo oo rabbigaa weydiiso lagaa khafiifiye. mayuu dhahay rasuulka sal alla calayh wasalam. intaa wixii ka dambeeyay ani waa xishoonaya, 5taanaan qaadanaya. xataa 5tii buu rabaa nebi muuse in nala ka dhimo. 5tii baan awoodi la'nahay maanta. 5tii baa maanta la tukan la'yahay, 5tii baa maanta la ilaalin la'yahay, 5tii baa maanta lagu khushuuci la'yahay, 5tii baa maanta la daa'imi la'yahay. ka warrama walaalayaal haddii 50 ahaan lahaayeen, 50 salaadood hadday ahaan lahayn, xaggee iska bixin lahayn? xaggee aadi lahayn? maxaa samayn lahayn? saa darteed ayuu rasuulku yidhi maya, intaa wixii ka dambeey ani waan xishoonaya. ilaa ilaahay xaggiisa looga soo naadiyey maa yubaddalu alqowlu ladaya, qowl agteeda ahaaday la bedeli maayo. waa 5 salaadood xagga cadada, waa 50 salaadood xagga ajirka. 5taa salaad haddaan tukanno, 50 salaadood tukaday ajirkooda markaana loo qoraa. salaada ilaaliya, waquumuu lilaahi qaanitiin, xaafiduu cala asalawaat waasalaati alwustaana ilaaliya. waquumuu isu taaga lilaahi qaanitiin. salaatulwusta saan soo tilmaanay waa salaada casirka ah. dagaalkii khandaq ama axzaab intaan la soo dejinin dagaalkii khawfka, mushrikiinta way hortaagnaayeen muslimiinta.
ilaa qoraxdii ay dhici rabtay. cumar ibn alkhadaab baa soo baxay, wuxuu guda galay yasub inuu caynayo mushrikiinta ee uu leeyahay rasuulkii ilaahayow ma sigin inaad salaada casirkaa tukatid ilaa qoraxdu ay sigtay inay ka dhacdo. nebigu wuu habaartamay sala allahu calayhi wasalam, ilaahay qubuurtooda iyo qalbigooda dab iyo naar allah ku shida buu dhahay nebiga. salaatul wustaa bay naga mashquuliyeen. ma tukan rasuulka sal allahu calayh wasalam ilaa qoraxdu ay dhacday. nebi naxariis badan buu ahaa, laakiin wixii habaarka ka keenaa jira. habaarka wixii ka keenaa jira wuu ku indhaqaboobsan jiray salaada, wuu jeclaan jiray salaada. way ka mashquuliyeen. ilaahayow joofafkooda iyo qalbiyaalkooda iyo xabadkooda iyo qabrigoodaba dab ku shid buu dhahay rabbiyow. waayo salaatul wustay naga mashquuliyeen. salaaddii aan jeclayn bay naga mashquuliyeen. salaaddii qiimaha badnayd bay naga mashquuliyeen. rasuulka sala allahu calayh wasalam salaadaha saasuu u jeclaa, salaadaha saasuu aad iyo aad ugu dadaali jiray. wax yar marka uu dareemo wuxuu dhihi jiray bilaal aaway, kaalay arixna noo raaxay. maxaa loogu raaxaynayaa salaada? markaasaa intuu dhagaha faraha gashta bilaal uu leeyahay allaahu akbar allaahu akbar, markaasuu aadaanka ku dhufanaya. markaasuu nebigu istiraaxaya sala allahu calayh wasalam, waa degaya, hammigii baa ka baxaya, murugtii baa ka baxaysa. si kastoon u tukana maanta murug nagama baxdo ilaa kaniin hurdo aan cabno maahane, ilaa wixii noocaasa aan samayno maahane. saa darteed baa salaadu waxay u dhigantaa shay aad iyo aad u qiimo badan. nebiga idaa naabahu shay baadara ila asalaa, dhib yar hadduu la soo gudboonaado salaadduu u degdegi jiray sala allahu calayh wasalam. waayo xiriirkaasi ilaahay ka dhaxeeya. ilaahay buu la munaajoonayaa, ilaahay buu la xaajoonayaa subxaana wa tacaala. saa darteed buu ilaahay ku dhex baryayaa salaada, markaasaa laga qaadayaa wax allaale wixii humuum ah. farxad ayuu dareemayaa. waxa carfa, shayga udga iyo dumarka guurkooda aad baan u jeclahay buu dhahay nebiga, laakiin waxaan ku indhaqaboobsada waa salaada. salaadaan aad ugu indhaqaboobsadaa. waxaan adduunkaa layga jeclaysiiyey. udugu aad buu u jeclaa, guurku aad buu u jeclaa, ummadda wuu ku guubaabin jiray. laakiin wax intaas igala weyn oo iiga fac weyn oo haddaanan arkin aanan joogi karin waa salaada buu dhahay nebiga sala allahu calayh wasalam. waayo qurtucayn baa lagu magacaabaa, indhahu ku doogsadaa. maalintuusan tukan ama salaad daahdo ama salaad si kale noqoto wuxuu ku indhaqaboobsada ma haysto. saa darteed baa waxaa loo baahanya walaalayaal salaadda aan maanta dayacnay inaan ilaahay u soo laabano subxaana wa tacaala, inaan taacada ilaahay xoojino, inaan iska dhigno dad khayr iyo wanaag badan, inaan muujino salaada inaan jecelnahay, inaan rabbi subxaana wa tacaala xiriirka nooga gaarsiinaya waayee aan aad iyo aad u ilaalino. waayo rasuulku wuxuu yidhi waxa ugu horeeya ee addoon maalin aakhira laga xisaabo salaaddaa ugu horaysa. salaaddaa ugu horaysa. hadday salaaddu u fiicnaato, oy salaaddu hagaagto, oo salaad la aqbalay ay noqoto, inta ka sii dambayso dhan way u fiicnaanayaan. haddiise salaaddu xumaato, waxa ka soo haray oo dhan ka soo qaad ma laha. haddii ilaahay addoonka salaadda uu ka xisaabo nusqaanna ay gasho, wuxuu leeyahay hal licabdii min tatawuc, u fiirfiiriya addoonkayga wax sadaqaan wax oo sunno ah ma sameeyey. waajibka wixii nusqaamay markaa loogu kabo. allaahu akbar. sunnaduna qiimahaasay leedahay, sharaftaasay leedahay. wixii naga nusqaamay ilaahay noogu kabayaa subxaana wa tacaala. saa darteed salaadaha aad ha loo ilaaliyo, salaadaha ha la xafido.